السكان في الأمم المتحدة و UNFPA هولندا waxa la yidhaha Ari Hockman ayaa wuxuu ka khudbadaynayaa nadwo lagu qabtay Mexico marka wuxuu ku faraxsan yahay isbedelka dunidu ay qoyska ka samaysay hadda muxuu leeyahay in irtifaac mu'addalat at-talaq وكذا ارتفاع معدلات المواليد خارج نطاق الأسرة يعد نصرا كبيرا لحقوق الإنسان على البطريركية وحلية هي ترى بضتي فريتانكا طلاق الدنيا دو بطيبولي وحكى الله بطيبولي عرورة الشرع الدرادة كدالتا ينقور لغدالين labadaaba waxaan u arkayaa buu leeyahay guul xuquuqda bini aadamku ay gaadhay inay tahay weligaa ma maqashay waxa ay dhaha in la isfuro iyo caruur garacye inay dhalato wuxuu ku tirinaya inay tahay yucaddu nasran kabiiran lixuquuqi linsaan cala albatrarikiya batrarikigu waa maxay waa mujtamaca ninku ka taliyo mujtamacii ninka taliska ahaaba laga baxay buu leeyahay laga xoroobay oo dumarkii iyo carruurtii baa ka xoroobay marka sharci darrada waxbay ku dhashay markay doontana furitaankeeda ay qaadatay wuxuu ku tilmaamayaa markaa inay tahay xorriyad Annie Foster daraasa uu sameeyay waa Maraykan wuxuu leeyahay dunidu caqligii hore ha ilowdo ee ahaa سكسكو إنه توي هاي ميلا في ميلينو يهي الأجناس الخمسة هذا ويان بولي نوع بني آدم إن تقسيم الخلق إلى ذكور وإناث بولي أصبح واقعا تجاوزه الزمن بني آدم كاين مكان الواقع يقول لا بيددك وور لقيت بولي هاي ولم يعد يعبر بدقة عن حقيقة الواقع الإنساني ذلك أن الواقع أصبح يحفل ب5 أجناس war wax la yiraahdo nin iyo gabadhi dunida hadda kama jiraan shan nooc bini aadam ba hadda jira buu leeyahay waa kuwii ragga barigii hore la oran jiray qoladii dumarka barigii hore la oran jiray ragga cusub ragga kora dumarka cusub dumarka kora iyo ragga iyo dumarka la isku bedelo kuwan ay biologically intay qalaan ay bedelaan markaas yani nin baa la qalaya هرمونال lagu mudaya naasa loo sameeynaya mahbal sanaaciya loo sameeynaya wala gabadhaynaya isagoo gabadhu markaa noolaanaya ficlan ma u malaynaysa midkaasi intuu soo islaamo diinta dib ka fahmay in la garan waayo safka masaajidka xagga lagu dari doono xagga dumarka la geey xagga raga la geey caalamku aynu joognaa ما هالدراسة نقول السماء يقول وحنا نشاغلنا أفكار تاسي United Nation عولمة وصمينسا United Nation بربطة globalization أفكار تنوع عصينا كسميس وهي أكبر منظمات العالمية لحقوق الإنسان وأشهرها على الإطلاق أي وحي لا ضحي وإن للضمان قاد كافة الحقوق للشواذ على المستوى الدولي القانوني والتشريعي مركزا اللحدن دولة دوديدين بلا وحيد هذا أري كان homosexual في إنجليزي قالوا هذا وأري هلا الطورة بيد هذا ما استعماله LGBT وحيد هذا LGBT ما غشة LGBT وآخر كلمة دود الله يسكرنا باي إيش وحيد تاج أنت lesbian دمرك فولا يجيد وجاي رجع كرة بيدو بايسكشوال ومد لبضر دم باستعماله تي ده ودم بايسانا وترانسجندر بيدا وكون لبدلين شيء جيني مركا LGB هلو بدل بيلين ماشطن وحقوق ده هلا الراديو هذا بقى أيها الإخوة أفكار تاس رنتي ما ها أفكار مساجد اللي جوا الربا لكن وحنرك يا يضو يرسعون السه إني مقالوين كيدين لتشوفتو وتحديات خارجية وقرية كسوكرني إمك وحي تاغي الهندسة الاجتماعية للأسرة بين هذين
وفاملي وحو بهنيي إن مهندس لوغو يرو هندسة عصب محي شيغيسا waxay sheegaysaa qofka bini aadamka dawrka uu bulshada ka qaadanaya waa dawrkii loo tababaro bay leeyihiin haddii ninnimo loo tababaro waa nin haddii gabadhnimo loo tababarona waa gabadh ficlanna way isku dayeen ma u malaynaysaa in la sameeyey tajaarib bini aadam inta meel ugu ururiyey in tajribadaasi loogu yeedhay khubaradaasi oo la leeyahay qaarna rageeya qaarna dumareeya idinku aan u eegin biologically si ilaahay u abuuray haweegi nin baa la rabaa la soo saaro ninnimada gabadhnimo dareemayo ku faanayo dawrkii gabadhnimo haya gabadh baa la rabaa la soo saaro ninnimo dareemayso faanaysa oo iyadu leh waxay yidhaahdeen wadiifatu al-umuuma hooyanimadu way yidhaahdeen ma aha shay mulasakh waa shay ku dhajisan dumarka ma aha bay yidhaahdeen waa wadiifa ijtimaaciya waa shaqo bulshado ciddii qabatunba hooyo noqoto bay leeyihiin ninna hooyo noqon karaa gabadhina hooyo noqon kartaa cid waliba waa wadiifa ijtimaaciya ayuha alaxiba waagii hore waxaan leenahay isticmaalku markuu wadanadan gumaysanayay waxaa ka soo horreeyey mubashiriin iyo mustashriqiin wadaado diimahoodii sida iyaba ka soo horreeyey niman mustashriqiin la yidhaha orientalist niman le dhaqamada iyo afafka dadkaanu baranaynaa oo sahana ah kadibna waxaa la bilaabay dowru tacliim waxbarashadii iyo iskuulladii waxa in la sameeyo kadibna waa la qabsaday hadda colonism cusub baa socda isticmaar jadiida hadda jira laakiin aadawaadkii mustacmarkii hore ma wato wasaa'ishii hore hadda la isticmaali maayo hadda wasaa'isha cusubi waa munadamaad غayru xukuumiya waa NGO-yo waa hay-adka iqaathiga hay-adaha dadka u gargaara waa United Nation waa ururo noocaasi oo aan magac dawladeed wadan baa ku imanaya ficlan rag bay matalaan laakiin markuu ku imanayo wuxuu wataa wax kale dabeetana laacaasay daadinayaan imka miskiinka yare baadiyaha jooga marka abaartu qabsato muxuu yidhaahdaa maxaa la yidhahdaa munadamooyinka caalamiga iyo maxay daqbixiyayaasha dunida hana soo gaadhaan bay yidhahdaa waayo waa nimankaasaa meel kasta jooga oo wax caawiya hadda falsafada la wadaa markaa waxay tahay آخر حسن للإسلام